siyaasadda haweenka haddii aan ka hadlo xilliyadii hore iyo xilliyadan dambe farqi ayaa u dhexeeya inkastoo waayihii ugu dambeysay ee u malays inay soo hagaagayso dhanka siyaasadda doorka ay ku leeyihiin haweenka waagii hore horta door fiican kuma lahayn haweenku shaqadaysan ku lahayn siyaasadayna ku lahayn wax saasa kuma lahayn markii horaad laakiin hadda xoogaa waxaad moodaa inaan inta hore aan ka roon haweenka markii la yiraahdo siyaasadda iyo shaqadaba waxaan isleeyahay kaalin xal ay ka qaadan karaan dhabar ayay u yihiin qofka dumarka intuu kaalinta ragga uu ka qaato waxbarasho shaqo siyaasad in la eg ay qaban kartaa qofka dumarka waxaan u maleynayaa gabdho aan ku faanayno oo aad iyo aad wax u soo bartay gabdhihii Soomaaliyeed aad iyo aad bay wax u soo barteen waanu ku faani karnaa ilaa ra'iisul wasaare way noqon karaan gabdhaha Soomaaliyeed dadaal badan oo ay habeenku u kaleen in ay doorkooda soo muujiyaan alxamdulillah hadda xoogaa ifafaalo wanaagsan ay soo muuqataa laakiin xilliyadii hore waxaa u malaysaa in dumarka la liidi jiray lana dhihi jiray dumar jikada oo kaliya ay ku eg tahay meel kale kama soo muuqan karto anaga dad islaam aan nahay Soomaali markaan nahay diinta islaamkuna ma qabto in qofka dumarka ay bulsho dhan ay wada hogaamiso ayadoo taasi jirto hadana qofka dumarka uu qaban karaa ragga uu hoos iman karaa sida wasiirada oo kale xildhibaanada oo kale waxay hoos tagaan golaha shacabka gudoomiyaha shacabka waxay hoos tagaan ra'iisul wasaaraha hadda xoogaa waa la fahmay markii 30 loo dooday oo xildhibaan ay naagu noqotay oo ay noqotay maxaan ku leeyahay wasiir xoogaa inay wax qaban karto xoogaa waxa u malaysaa in wax la sii faahfaahmay markii hore boqolkiiba 16 ayay ku lahaayeen maanta laakiin waa ka badannahay doorka aan ku leenahay haweenka Soomaaliyeed isbedelka waxaa keenay dumarka oo dadaal badan muujiyay kartidooda banaanka u soo dhigay meelo badan oo la dhihi jirayna kama soo muuqanayaan dadaalkooda laga arkay sida siyaasadda oo kale qaybaha kala duwan shaqada sababtoo ah dumarka door firfircoon hadda ku leeyihiin siyaasadda waana la arkay kartidooda iyo dadaalkooda halka ay maanta gaarsiisan tahay gabadhu inta guriga ka shaqaysay waxayna u shaqay kartaa dawladda meeshay rabtay ka shaqaysan kartaa gurigana waa ka shaqay kartaa ilmana waa dhali kartaa intaas isku qaban kartaa laakiin ninka ragga hal shaqo ka shaqay kara ka badan kama shaqay karo